gobolka si aan dib u dhigano in arrintiina uga jawaabo waxaan jeclahay waxa runtii eedaynta loo jeedinayo waxa weeyaan waa maamulkii gobolka oo ka wakiila dowladda dhexe ee waddanka Soomaaliya haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaan su'aalo dhowr ah ka weydiiyay arrintaas oo aan ku bilaabayo bal marka hore xaaladda deegaanka Kabxanley inuu marka hore ka warramo بسم الله حسن عبدي وبعد Somali Channel أهلا بك سلام إن شاء الله أنا سؤالنا سوي أرنتاس هنتي تقال ضد بيرا ومدور الدجنا أيها ميلها نقول كان كبحلي لا ديفو وحوجا حروب الحمرين هنتي واقفنا هاي مدة كده المينا أرما سدعين أسايا شروتي قدر الله يكون عين حتى أنا رنتي مال في عم بمريان حاجم في عم بصعطة نبضي والله ورقاتي أنا وحن رجينا إني كسر قبضوا بدونان آخر إن شاء الله والأول يبرر يبدك ولا تجراجي ولا ولا تجراج إن شاء الله. waxaa soo baxaysa gudoomiye cabasho aad u ballaaran oo dadka deegaanka ay sameynayaan oo ah in dhibaatooyinkaasi aad loo geystay marka yaa dhibaatooyinka deegaankaas ka geystay ayaad u malaynaysaa runtii cabashada way jirtaa maxaa ka runa maxaa ka beena waa wax kale laakiin meesha runtii dad meesha wada dega ayaa dhibaato ka dhex dhacday sida Soomaaliya waa 23 sano meesha runtii Soomaaliya dhibaato ka mid ah ka dhacday runtii waa ka xunahay laakiin kulli hadii la dagaalo dabadeedna heshiis baa la gaari doonaa waxaan rajaynaynaa in bariisamaadka loo soo noqon doono nabadna ay dadku wada noolaan doonaan insha Allah waxaan rabaa in arrinta ugu muhiimsan oo dadka inaan ka jaahil bixisaa rabo waxay tahay waxaa la leeyahay ciidamo ka tirsan maamulka gobolka ayaa dagaalkaasi dhibaatooyin badan deegaankii waa la gubay dhibaato ayaa dhacday ugaaskii dadkii cuqaashi ka soo jeeda deegaanadaas ayaa hadlay maxaad ka leedahay in dagaalka ay qayb ka ahaayeen beelaha ka sokow maamulka ciidamo u wato أنا رنتي وكعماي وحكجيران مديران أتعدوا سنة دولة إيران وحنقصون عيد مدى عامسهم عيد مدى دلك جيبوتي ورنتي هيل ولا دلك هوية غاني وقبل كجوغا وحاكلوا جوغا عيد مدى إثيوبيا وترفي عن كل مقالة بيهاد ولنا جوغا عيد مدى الصومالي لأيرين رنتي وحكجيران مدى maamulka la eedeynaya wax ka jira male arrintaasna runtii kadib markii ay yimaadeen halkan guddi uu hogaaminayay wasiirka hore kheyraadka iyo xildhibaano badan oo la socday oo xaqiiqa raadis ahaa arrintaa markii ay weydiiyeen ciidamada dalka degan oo maaragtay nabadda jooga iyo ummadda Soomaalida waxgaradka kale oo dalka degan arrinkaas runtii waa ka xunahay war beena oo aan raadiisa lahayn waaye loo raacan lahayn runtii waa ka xunahay dowladda Kabxanley waa la gubay dad baa la qabadsiiyey dhib xun baa loo geystay hase yeeshee anigu xataa shakhsiyan baarista weli way socotaa waxaan aaminsanahay waxaas dad maaragtay al-shabaab iyo dadku soo dhex dhuuntay ayaa waxaas geystay mooye dagaalada qabaa'ilada Soomaalidu in wax la gubaayo Hiiraan kama dhici jirin waa la tigaari jiray waxaas marka dad doonaya shabaab oo gadaal inay ciidankii horumarkiisa halkii weliba laga aadi lahaa inay ummadda dib u celiyaan oo halka dambe halkii koonfur la aadi lahayn waqooyi u celiyaan baa dhacay waxaasna waa siyaasad iyo dhibaato ummadda lagu soo kordhiyey waa ciidan iyo maamul shacabku laabaan muddaa kadib arrintaa oo hiil walaal iyo anaguba aan tegnay janano iyo mas-uuliyiin sare oo hiil walaal ka tirsan ciidanka Itoobiya ka tirsan iyo maamulka arrimaha muddo badan ku noqonay ka dignay laakiin si daro way dhacday hase yeeshee xukuumadda Ameerika bixisay go'aan si dadka dibadejin loogu sameyn lahaa amniga loo sugi lahaa arrintan hadda meel fiican bay maraysaa suxufiyiinta madaxa bannaan goobta waxaa la yidhi lama geynin si ay u soo arkaan dadka ula soo hadlaan arrintaasi maxaad ka leedahay wax ka jira male cid kasta tagtay heedaha tagi heedaha soo halkaa tagi
ولياشة تجي وزير عبد الرزاق فكروا يباني هالك وإني لسعودي الباندي وعلى السعودي صحافة ونما على السعودي عالم كانوا بكذا والله أيضا لصوت دبي أو وحكر سعودي ما هي وكواحد وعويدات رنتي رواية وين فينا في أبوران أما يصير العيان باك شكلينيه waxaad wax ka jira male marka dadku waxay leeyihiin meesha goobta kabxalley waxay leeyihiin ilaa iyo hadda hay-ada samafal oo inta tagay wax ka qaybiyey ama gacan ka geystay haba yaraatee ma ay jirtay leeyihiin maxaa u diidan dadka qaxootiga ah oo ama deefow ama kabxalley intaba macnaha ama kabxalley aan isha ku dhuftee maxaa loo tegi waayey oo wax uun looga qaybin waayey arrintaas runtii aad u socotaa waxay ku soo aaday xilligii fasaxyada sanadka kala guurkii christmaskii iyo new yearkii ku soo aaday shirkii afaraad ama shirkii shanaad baan dhehe maalintii khamiistii ayuu soo gabagaboobay waxaana la soo gabagabeeyey hadda tirakoobkii iyo dadka dhibaataysan jimcihii lasoo dhaafay kii shalay maakiisii wafdi runtii ballaaran oo maamulka iyo hay-adaha samafalka oo dhan ayaa ku soo maray si u soo xaqiijiyaan dhibaatada meesha ka dhacday waxay ka bilaabeen kabxalley deefow meesha la yidhaahda baarey dhammaan aagaada dooncaday dhammaan dhulkaasoo dhan waa la tegey dadkii baa lala soo hadlay caruurta yaryar oo under age 5 wixii ka hooseeya wixii nutrition adigi jiray ama nafaqa darrada waa laga soo wada cabiray waxaa lasoo ogaaday heerka ugu sarreeya dhibaatada inay meesha ka jirto dhowr waa runtii arrintaasna shaqadeedii way socotaa ilaa UN OCHA ka socda ayaa jooga hay-adihii samafalka dhamaa diyaara waxaan is leeyahay dhowaan caalamka markii loo qeyliyay fasaxidii laga soo noqday kadib wixii hadda la hayo samafalku inay sii geeyaan wixii dhimanna in caalamka lagu qeyliyana way socotaa runtii dadka deegaankuna aad bay arrintaa usoo dhaweeyeen wax dhibuna kama jiraan insha allah waana la gargaari doonaa dadka marka hay-adahaas yaad ka tilmaami kartaa wax la magacaabi karo dadka hay-adaha goobta tirakoobka ka sameeyey ee tegey wax ma ka magacaabi kartaa waa aad iyo aad safe children baa kamida DRC baa kamida waxaa kamida maxuu ahaa qoyl NGV la yidhaahdo local NGOs wardi oo NGO kamida runtii waa badnaan ilaa 7-8 NGO ayaa tegey intii kalena shirarkii dambe ay ku soo darsoomeen oo intii iyagoo ka badan ayaa tegi doona insha allah gudoomiye anigoo aad kaaga mahad celinaya inaad fursadna siisay haddana qaybo kala duwan arrimaha ka imaanayo adiga ku quseeya waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay xubno ka tirsan staafkiisa ama ciidamada sida gaarka u ilaaliya ayaa deegaanka iyagoo ka dagaalamaya xitaa ku dhintay bay leeyihiin marka arrintaasi miyay jirtaa waxaa staaf saas u tababaran lama haysan aniga staafka aniga ilaaliya waa 3 qof 4 qof weeye oo weliba kulan cusub yahay 3 qof oo Soomaaliya staaf u haysta haddii tuulo u weerari karaan ama Soomaa ka maraga ciidamada Itoobiya ka maraga Soomaalida gobolka degan oo dhamaa kamida marka staafkayga hal baabuur 3 qof waaye marka warlord maahi marka hadda 3 qof haddii tuulo weerari karta ayaa la weydiin doonaa dadka waa tahay wax baabuur oo Amisom ay leeyihiin oo goobta ku gubtay miyaa jiray oo dhibaata ka soo gaartay may Amisomna ma tigin meesha runtii markii hore oo aad bay Amisom walaalaha heel walaal nabadda uga shaqeeyeen marka dambana wasiiradu yimaadeen iyo nawaay tageen laakiin waxaba yaraatee Amisom dhibaato meesha ka soo gaaray ama ay goobjoog ka ahayd xabad holcaysa amaba jirinba waa tahay gudoomiye waxaa la socotaa waddanka Soomaaliya waxaa dhibaato u geystay inta dagaal dhaco dhibaata dhacdo oo meel wax ka dhacaanaya haddana laga aamusaa adigu gudoomiye maamulka gobolka ayaa tahay baaritaanna inaad samaynayso hadalkaaga ayay ku jirtay in la samaynayo ciddii ay ku caddaato oo ama maamul ha ahaato ama beel ha ahaato ilaan arrintaanoo kale waa arrin xuquuqda bini'aadmiga ka baxsan in la isaga daba tago weeye tallaabada ku habboon yaa ka qaadi kara bay kula tahay cidday ku caddaatay inay dhibkaa geysatay runtii arrintaan arrin foolxun oo dhacda weeye
mana aaminsanin runtii dad shacab oo Soomaali oo dagaal iyo weliba dagaalkiisa waxaasoo kale ka dhacaan haddii shaqo dhimayno arrintooda waa lagu jiraa amisom joogta ciidamada Itoobiya jooga maamulka jira baaritaan hoose ayaa socda waxaan aaminsanahay ficilladaan oo kale lagu helo saad arkayso waa isbuurin iyo dad la qabansiiyey waxaasi dhaqanka Soomaaliya ka mid maahan saan anigu kulliga warbixino badan ku bixiyeyna waxaan aaminsanahay dad ama shabaab u adeegaya ama kamid ah ayaa waxaa sameeyey mid kale waxaan kuu sheegayaa istaraatiijiyada al-shabaab inay tahay 3 dhacdo oo isku eg baa Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya ka socotay guryahan number 50 meesha la yiraahdo si loo joojiyo ciidanku inuu hore u socdo baraawo aado number 50 dagaal colaadeed iyo dhibaato iyo guryaha kuwa laga bilaabay sidoo kale joogan ciidanka jooga si uusan guula barduru soo aadin xagga dambe oo joogan dhanka xamar ayaa tuulooyin in ugu iyo dagaal laga bilaabay jiiraan si aysan guula bardu ciidanku aadin xagga dambe ka baxan leeyahay la gubay marka waa istaraatiijiyad aan isleeyahay shabaabku isticmaalayeen maadaama ay tabar yareeyeen inay dadka waxaan la arkin ka dhex sameeyaan ummadda isku diraan runtiina waan xog badan haynaa qabaa'ilada dhanba anoo hadda qabeen gaar u saaranaynin way ku jiraan element oo shabaab ah oo rabay inay dib u dhac ku sameeyaan runtiina waxaan dhihi karaa siyaasaddu noocaas ah way shaqeeyaan